waxaan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale warbaahinta qaranka aad kala socotaan. barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa hadduu alla idmo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kormeeray xarunta xukuumadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo heer gabagaba marayo. barnaamijka aad ku maqli doontaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee ka hadlaya kormeerka kadib. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug oo soo gabagabeysay kormeer ee toddobaadyadan ay ku tageysay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadduu alla idmo. qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan barnaamijka. waa tahay dhageystayaal, barnaamijka aynu ku bilownay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa uu kormeeray xarunta xukuumadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo dhismihiisa heer gabagaba maraya. xaruntan cusub oo laga dhisay halkii hore ee la dhihi jiray xarunta xisbiga ee degmada Warta Nabadda ayaa ka kooban xafiiska xukuumadda, xafiiska iyo hoyga ra'iisul wasaaraha iyo hoyga martida iyo qeybo kale. ra'iisul wasaaraha oo warbixin ka dhageystay injineerada dhismaha xarunta xukuumadda ayaa kula dardaarmay inay si dhaqsi leh u soo afmeeraan dhismahaasi oo xukuumadda heer gabagaba maraya. haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa warbaahinta la hadlay kormeerka kadib. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallaahu alayhi wasallam. maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kormeer ku tagay xarunta cusub ee xukuumadda federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto. halkaan uu xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay ku shaqeyn doonto haddii Ilaahay uu yiraahdo. mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagaba ku dhow. ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra'iisul wasaaraha, deegaanka ra'iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda, masaajidka weyn oo halkan laga dhisay. runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhamaado. halkan oo ku taal bartamaha magaalada Muqdisho oo ah halkii hore loo dhigi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda Soomaaliyeed ay ku shaqeyso, taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kale fududeynta hawlaha xukuumadda iyo adeegga dadweynaha inta. weli barnaamijka dhacdooyinka ayaad la socotaan ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali ayaa soo gabagabeysay kormeer ee toddobaadyadaan ku tagtay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. kormeerka kadib ayay warbaahinta la hadashay. iyo maaragtay reer Sheekh wixii laga sheegi jiray astaanta ay ka muuqato xirta ahayd waa ku faraxsanahay. anagu waxaan u nimid meeshaan maaha dalxiis iyo inaan idinku kor socono iyo saas ma ahan. waqti jiidaal ah oo abaar ah oo dhib badan jiro oo dadkii barakacay oo rafaad jiro waxaan u soo baxno u soo hayaano intaas u soo socono waxay tahay xataa gacanteena hadaysan ahayn gacanta caalamka tan dawladda mid aan ku metelno cid kasta oo wax ka geysan karta oo wax ka sadaqaysan karta inaan gaarsiino codkiina maadaama aan xildhibaan ahay. xukuumaddu iyo xildhibaanku labay kala tahay. xukuumaddu waxay fulisaa xafiisyada waxa ka jira shaqooyinka sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo xukuumadda fulisa. anagu xildhibaan baan nahay waqtiyadaan aan shaqo galnaa oo ay tahay baahidu markay jirto. hadda baarlamaanku waa xiran yahay. qof kasta oo xildhibaan waxa laga rabaa inuu intuu deegaankiisa ku laabto uu ka soo warbixiyo oo yiraahdo waxaasay u baahan yihiin waxaasay u baahan yihiin kadib markaas xukuumaddu idin timaado idinka fuliso oo idin qabato shaqada. haddii xukuumaddu haddana intay wixii loogu talagalay ay si fiican u fulin weysana haddana in ayaga laftirkooda aan niraahno maxay tahay waxa sameeynaysan oo dabagal ku sameeynaysaa anagu xildhibaanku shaqadiisu intaas weeye. aniga waxa ii dheer 12 qabiil oo idinku ku jirtaan iyo ka badan oo Galmudugan waxaan u ahay gudoomiye, laakiin si qaas ah deegaankaanan xildhibaan ugu ah. marka waxaan u imiday oo ugu horeysa waxay tahay waxaan maqalnay in maaragtay idin saameeyay jiidaalkii iyo abaartii oo la barakacay oo dadka hayaameen oo baxeen. waxaan isniri inta marasta ah ee caruurta yaryar
haysta iyo dadka waayeelka iyo dadka jiran ee aan ka tagi karin magaalada ugu yaraan biyo inaad u geysaan adduunkan ugu wacdaan si ay maaragtay dadku ay uga soo gaaraan oo waxay cunaan iyo waxay cabaan loo ilaaliyo ayna ka ilaalino in heer dhimasho aysan baahidu idinla teginin ilaahay baa idin ilaalin karo ani waxaan idinkugu duceynayaa ilaahay inuu idin xifdiyo idin barakeeyo sida aad ogtihiinna wax kasta waxay ka bilaabataa dawladnimay ka bilaabataa dawladnimo kastana waxay ka bilaabataa shacbiyad bay ka bilaabataa waxaa muhiim ah deegaankan laga soo bilaabo afbarwaaqo iyo dhankaas ilaa iyo badda lagu tago geesaheeda marka la fiiriyo waxaan u bixinay waxa la yiraahdaa mudugta fog ayaan u bixinay waxaan ku qasbanahay inaan degmooyin u sameeyno si la idin aqoonsado adduunku idinkugu yimaado degmadu waxay soo bandhigaysaa oo ay keenaysaa maxaa la yiraahdaa baahiyaha daruuriga ah u baahan tihiin sida hadda aad sheegteen waxbarashada caafimaadka iskuulada yada meelaha la isku xiro shaqooyinka asaasiga oo dadku aysan ka maarminin waxa qabta degmada qabata hadii aysan dadku degmo lahayn ama se degmo aysan u dhaweyn ma suurtoobayso inay noloshooda ay kaamil noqoto ma suurtoobayso waa meesha ay ka bilaabato quraanka waxa laga bilaabo alif wax maale qof aan hikaad baran quraan ma baran karo albaqra ma akhrin karo waa sidaas oo kaleeto degmo hadii aysan dadku isku soo aruurin shacabku aysan degmo samaysan deegaan samaysanin urur isku imaanin dawlad ma noqon karaan si kasto dadka ugu sareeya dawladda ugu jirtaan micna ma sameynayso si kasto dad firfircoon idinkaga dhasheen micna ma sameynayso aqoon-yahan kasto aad leedihiin micna ma sameynayso waxa micna sameynayo wadankan magaaladan inaad ku leedihiin deegaan degmo inaad ku leedihiin taasna miiskay noo saarantaa aan ka shaqeynaynaa idinka waxa la idinka rabaa inaad abaabushaan sidii loogu sameyn lahaa degmana falankeeda gashaan kana shaqeysaan xukuumadda soo jeedisa oo soo diyaarisa madaxweynaha saxiixa laakiin degmo inay noqoto waxa ansixiyo baarlamaanka annagana taas diyaar u nahay inaan ka shaqeyno idinkana waxa la idinka rabaa meesha ay ka bilaabanayso inay maaragtay aad soo dhameysaan oo idinka hoos ka soo bilowdaan markaas waxa idinka harayso in hay'ad intay idin timaado numberka la idinka qorto tirada la idinka aruursado lacag la idinku soo qaato waxbana la idin soo celinin in yar oo la idinku sawiro ma ahane taas waxa idinka reebi kaliya inaad degmo ka shaqeysaan inaa heshaan haddiina degmo helin waxna ma heli kartaan anaan wax idin qaban karin cidiga horeysaan waxba qaban karin cidiga dambeysana wax ma idin qaban karto marka waxaan rabaa inaad inta isku dadaashaan is aruurisaan waxaan idinku amaanayaa adduunka markaad tagtid oo qaramada midooba u tagtid oo dawladda u tagtid oo dadka idinka idin yimaado idinka soo laabta la kulantid waxay ku leeyihiin dhulkiini deegaanka kursigaagu yaalo deegaan doorashadaada ah familkaagu ay ka soo jeedo waa dad aruursan edab badan kala dambeeya nidaam leh waxa ay kugu heshiiyaan ugu iimaanaysid waa idinku amaanaya intaas meeshaas yaan laga sii deynin isku duubnidaas yaan laga sii deynin dadka u midooba hadalka u midooba wax kasta u midooba dib male in badan waa soo dhibtooteen wadanka dhanaa burburkaas ku jiro idinka kaliya ma aha Soomaaliya oo dhanaa burburtay Soomaaliya oo dhanaa gadaal u noqotay Soomaaliya oo dhanaa baaba'day hadda ayaa dib loo soo kicinaya Soomaaliya inay dib u kacdo idinkana qayba ka tihiin meeshan ma joogi kartaan waa leedinku dul imaanaya dad inaan aqoon iyo quruumo in aqoon ba kurkiina imaanaya leedinka mana kicin karo hadhow waxna la idin qaban karo hadda intay goorta is abaabula nidaamka systemka dawliga ah adkeeya culimo waa tihiin waa taqaaniin nidaamka iyo kala dambeynta iyo systemka sidoo u shaqeeyo waa taqaaniin system hadaad maqashaan sideeda waa nidaamna la idin tilmaami waayo culimo tihiin oo waa taqaaniin sida la isku darajeeyo sida loo kala sareeyo walaalayaalow annagu wax badan idin ma wadno laakiin waxa idin wadnaa qalbiye idin jecel oo idinka turjumaayo waxaanan hubaa dadkii iga horeeyay oo maxaa la yiraahdaa meeshan ka soo noqday mas'uuliyadda soo qabtay dad kaftamaya ma ahayn dad la dhaliilay ma ahayn dad ma ahayn dayacan ma ahayn dad oo lagu sheegay inaysan waxba kala goyn karin ma ahayn laakiin waxa ka wareersanayd systemka sidii ula qabsan lahaayeen iyo meeshii ay ka gali lahaayeen wax walbana waxay ka bilowdaan meel waxayna ku dhamaadaan meel haddii aad dhexda ka gashin waxna ma ku hagaagayaan marka waxaan aaminsanahay waxaan ka bilaabi doonaa meesha laga galo idinkayna idinka bilaabataa بإذن الله هوسان وده هل دونا ووده فريسان دونا مالها إن إسلب بوحنا وباهنا مالها صدقني إسلب بوحنا وحن كوجو ليسان دونا إن كم مرتان بالآذن أنا وحن روا مرك إن عايزين شغل صحن بيجي سوه الرأي هدا أكتهين أو أركتين أو عيل إذين قضايا
waana iga dambeyn doonaa oo way dhammaystiri doonaan xukuumadda wadda shaqada waa la kala leeyahay anigu xildhibaan baa ahay fartaan wax ku tilmaama laakiin ma fuliyo dad baa fuliya wasiiray leedahay dad maamulo agaasimahay leedahay dad ka shaqeeyo maalgeliyay leedahay way idin imaanayaan wayna idin dhammaystirayaan waliba riig baan ku ballanay ceel aan riig ahayn anagu ma qaadanayno qasabna ma aha inaad diido dhibna ma aha inaad diido tiraado waxa ma rabo waxa rabto waa sheeganaysaa waan lagu qabanaya waxa jirta waxyaabaha baahida u qabtaan oo ay ka mid tahay isbitaalada iyo iskuulada markaan ka baxna jiidaalka oo barwaaqada la gaaro wax isku soo darsada wax bilowda dhagax dhigta waa la idin dhammaystiraya waana la idin geenaya adduunka meel kasta oo idin dhammaystiri karta hawshaas idin dhammaystiri karta hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah magaaladan waxay heli doontaa xuquuqdeeda asaasiga ah oo laga maarmaynin idinkeena dadaalka idinku xiran tahay hadii Ilaahay yiraahdo anna waa idin dadaali doona xildhibaanada kale iyo wasiirada iyo dadka meeshan deegaankan ka soo jeedana way ku dadaali doonaan hadii Ilaahay yiraahdo walaalayaal oo maanta dhana qorax taagneedeen waa mahadsantiin ajir Allah idinka siiyo abaarta iyo dhibaatada in Allah naga dulqaado Ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga dulqaado abaarta isaga bixiyo deeqda annaga ma hayno Ilaahay baa haya waana ku mahadsantihiin sida noo soo dhaweyseen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir la yeelatay ganacsatada gaarka ah iyadoo halkaas ay kala hadashay horumarka ganacsiga agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Cabdicasiis Muqtaar Ibrahim ayaa shirka kadib la hadlay warbaahinta wasaaradda ganacsiga in muddo ah waxay macnaha ka shaqeynaysay furamo waaweyn ama workshopyo la xiriira wada hadalka ganacsatada iyo dawladda sida ka muuqataan u jeedeen public private dialogue waxaan wasaaradda ganacsiga ka shaqeynaysaa u diyaar garowga iyo dardargelinta runtii isfahanka runtii ka dhaxeeyo ganacsatada iyo dawladda public private dialogue taariikh dheer ayuu leeyahay annagana si isu fahmaan ganacsatada iyo dawladda howlaha ay hayso waxaa naga go'an marka inaan qabanno shirar badan oo kala duwan la xiriira public private dialogue runtii aan gaarsiin doono heer dawlad goboleedyada taasoon ugu gol leenahay inay ganacsatadu ay fahmaan howlaha wasaaradaha ama dawladda ay hayso iyo ganacsatada nafteeda say u qayb qaadan lahaayeen horumarka dhaqaalaha dalka saad la socotiin daaqadan waxaa loogu hadlaa qaybo badan kala duwan runtii qusaysa horumarinta ganacsiga hadday ahaan lahayd horumarinta warshadaha hadday ahaan lahayd horumarinta shirkadaha yar ama SMEs-ka iyo hadday ahaan lahayd industry-ga iyo tourism-ka iyo financial sector-ka dhammaan runtii lama gaari karo haddaanan ganacsatadii iyo dawladdii aanan wada shaqaynin adduunka ganacsigeena lama jaan qaadi karo waxaan ognahay in private sector-ka yani ay yihiin laf dhabarta runtii badbaadinta ummadda Soomaaliyeed maanta meesha marayno runtii kaalin weyn ayay ku leeyihiin dawlad dhiskana aad ay macnaha uga shaqeynayaan si aan u gaarno oo gacmooda jira u qabtaan si dawladdii iyo ganacsatadii ay u wada shaqeeyaan daaqadan ayaa ofra ama inay ku doodaan ayna ku fahmaan runtii sidii loo jaan qaadi lahaa aan adduunka loo jaan qaadi lahayn waxaad ogtihiin si loo gaaro adduunka ganacsigeeda aan u qayb qaadano dawladda waxaa ka xilsaaran inay diyaariso shuruucdii iyo nidaamyadii loogu talagalay ama sharciyadii runtii lagu hagi lahaa ganacsiga dalka iyo dibaddaba waxaa jira 3 blocks oo runtii isdaba taagan oo dawladda Soomaaliya maanta u taala inay horumariso ka shaqeyso waxaa ka mid ah waxaa ku jirna saada socotaan WTO accession oo socdo process dheerna u baahan waxaa kaloo jiro African free trade oo asna socda dhinac kale oo geeska Afrika ka socda runtii adduunka Afrika ka socda waxaa kaloo jiro COMESA oo runtii maanta anaga noo yaalo baarlamaanka hor yaalo si loo ansiyo iyo wadamada carabta yani blockiskooda aan aqoon qayb ka nahay intaas oo dhan marka
howlo noo yaalo waaye waxna waa international wax la xiriira waxna waa domestic laws marka annaga si aan ugu diyaar garowno waa regionka iyo adduunka intaba saan u gaarno waxaan naga go'an in domestic lawga ama sharciyada dalka la hormariyo dhammaantood sidee marka aan u gaari karnaa institution kasta waxay qaabilsan tahay ama ka shaqaynaysaa in shuruucda dalka ganacsi la xiriiro ay develop gareeyaan ay hormariyaan haddii hore u jirayna ay runtii reform lagu sameeyo si loola jaan qaado runtii adduunka cusub adduunkan waxa waaye waxaa lagu soo koobay globalization yani waxaa laga dhigay hal qaanad marka saan ugu harin waa in annaga aan u diyaar garownaa inaan sameyno shuruucdii dalka boolisiyooyinkii dalka saan ula jaan qaadno waxyaabahan soo sheegnay midaasna wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha kale dowladda dhammaantood waxay diyaar u yihiin in laga shaqeeyo mashruucan hadda yaalana private dialogue-na si loo gaaro meesha ugu sareyso waxyaabaha ka maqan gaabka la buuxiyo gaabka markii la buuxiyo ayaa la gaari karaa meesha hadafka aan leenahay in wadankii economigiis kor loo qaado in adduunka aan la jaan qaadno intaasaan ma gaari karnaa marka daaqadan way noo furan tahay ganacsatada Soomaaliyeed sector kasta oo qaabilsan runtii doodahan in aan ku doodno aan ka soo saarno yani waxyaabo wax ku ol ah runtii dalku wax u taraayo doodaha hadda ka jiro wasaaradana ay ku lug leedahay wasaaradaha kale ay ku jiraan waxaa ka mid ah wada hadalka ama doodaha yani ka dhacayo Afrikada East Africa African Free Trade iyo COMESA iyo WTO ba ganacsiga inay ogaadaan waaye waxa socda intaasna waxa loo sameeynaa waxay tahay runtii inaan wadamada dariska aan soo gaari karno meesha hadda ay taagan yihiin maadaama muddo dheer aan ka maqneen runtii siyaasadda saaxadda adduunka alxamdulillah hadda wax badan la qabtay reform badan jiro marka waxaan ka codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay la jaan qaadaan la socdaan runtii shuruucda dalka gacan weyn ay siiyaan dowladda Soomaaliya si ay u gaarsiiyaan ganacsatada adduunka wasaaradda ganacsiga diyaar u tahay inay la shaqeyso sharci kastoo la xiriiro ganacsi ama la xiriiro inay wax laga qabto inay wasaaradda soo saarto saad ogtihiin quality standardkii quality control waa la sameeyey saa la socotaan anagoo ugu golle inaan standardka runtii waxa wadankeena soo gala ama ka baxa tayadooda la ilaasho waxaan rabnaa inaan sameyno wax la hayo competition runtii policy ayadana sidoo kale yani loogu talagalay ganacsiga in lagu horumariyo iyo waxyaabo badan runtii ama hay-ado badan runtii la xiriira ganacsiga in la sameyn doono marka ganacsada waxaan ka codsanaynaa sector kasta ama financial sector ahaado ama tourism sector ahaado ama ICT ahaado ama SMEs ahaado ama financial ahaado waxa waaye inay kaalin weyn ka qaataan runtii labada la iska rabo waxa waaye laga shaqeynaa wasaaradda ay ka shaqeynayso maantana arki doontaan waxaa laga hadlayaa waa trading goods iyo trading service maanta insha Allah aad iskaashigiiska arki doontaan serviceka maxaa dalkeena maanta ogolaan doonaa in wadan kale soo geliyo maxaan diidi doonaa maxaan soo diyaarinaynaa intaasoo dhan hadii ilaahayda waxay ka soo bixi doonaan maanta discussionkeena iyo wadan kastaba tariifooyinka wadanka in la mideeyo si wadamada kale aan ula jaan qaadno in wixii dhan laga dhigo electronic iyo qaab runtii adduunka ula jaan qaadi karo 14 bishan waxa ay ku beegan tahay maalinta loo asteeyay dhiig dhaqista dunida Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka sida weyn ugu baahan dhiigga in la diyaarsado Dr. Faarax Maxamed Said oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay ahmiyadda dhiigga uu leeyahay Soomaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ah 14 bisha June ama bisha 6aad waa maalin loo asteeyay maalinta dhiig-deeqista adduunka. waxayna ka tirsan tahay 11ka campaign ee WHO aqoonsan tahay inay yihiin campaign caafimadeed kalandarkeedana ugu jiro. marka maalinta dhiig-deeqista adduunka waxaa loo asaasay 2005tii baahi markaasi jirtay awgeeda ayadoo ah ambaqaadka laga ambaqaaday oo ahaa in ruuxa bini aadanka loo ogolaado inuu fursad kale u helo si nolol tayo leh uu ugu noolaado. diinteena islaamka ayaa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu nagu yiri waman ahyaaha fakaannama ahya an-naasa jamiican. ruuxii hal naf nooleeyo wuxuu la mid yahay soo ummadoo idil wada nooleeyo. marka dhiigga laga hadlaayo ruuxa bini aadanka waxa uu baxsado waxa ugu qiimaha badan waay. waxa ognahay waa meesha hidisidihiisa fariimihiisa wax walba la soo darso laga ogaan karo waa muraayadii jirka. saas darteeda marka ruuxa bini aadanka waxa badbaadin karto dhibic dhiigaaga kamid ah. ahmiyada loo siiyay dhiig-deeqista maalin gaar ah waxa ay ahayd midaasi. ummadeena Soomaaliyeed markaan u soo laabto waxa u baahannahay sidii barisamaadkii aan u lahayn bangi dhexe ee dhiigga lagu maareyn jiray isla markaasna ruuxa bini aadanka ee Soomaaliyeed ee mutaystay in la siiyo dhiig uu u heli jiray si nadiif ah habsami leh isagoo laga taxadarayo bixinta deeqista iyo siintaba. hadda sida aan ogsoonahay dadaalada socdo ee in la helo bangi dhexe waa ay socdaan. isbitaalka Aadan Cadana waxa uu ahaa mid markaasi shacabka Soomaalida baahidooda dhiig deeqis ku garabsiin jiray maadaama ay joogeen Professor Cismaan iyo Professor Maxamuud oo takhasuskooda ahaa culumta dhiigga. dhiigga ayaa markii loo baahdo hadda waxa loo maraa fariimo ayadoo la soo gudbinayo WhatsApp-ka iyo Facebook-yada oo ay dadka qayladhaantooda meesha ay ku soo gudbiyaan ayagoo sheegay baahida iyo nooca dhiigga ay u baahan yihiin. walow aysan jirin hadda meelo rasmi ah oo ku kaydsan yahay dhiigga diyaar ku yahay. dhiigga ayaa hadda wuxuu yahay mid markii loo baahdo oo qofkaasi on the spot la sugu yeelayo markaasi ruuxa dhiigga loo deeqay iyo kii deeqi lahaa ay ku kulmayaan. baahida loo qabo in la helo bangi dhiig ma ah baahi xadidan. aad iyo aad loogu baahan yahay in Soomaalida ay helaan bangi dhiig waayo waa udub dhaxaadka nolosha qofka bini aadanka. waa tahay dhageystayaal waxaan isla soo gaarnay barnaamijka dhacdooyinka qaybihiisii ugu dambeeyay. dad isugu jiro Soomaali iyo Oromo oo ka soo barakacay dalka Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Doolow ee gobolka Gado. dadkan ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay oo qaxooti oo soo gaara Doolow waxaana hore u joogay dad kale oo barakace. aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya telefishinka qaranka. walaalow meesha waxaa ka jirto deegaankan gobolka Gado gaar ahaan Daawo gaar ahaan area Doolow waxaa ka jiro abaar baaxad leh. waxaa laga soo qaxay Bay iyo Bokool iyo Gado dhexdeeda laga soo qaxay. weliba Bokool iyo Gado u badan dadka isku soo qaxay. awalna waxaa joogta meesha hadda ADP ka baaso waxaa joogay 8,200 oo qofka hore ADP-ga oo barakacayaalaha u deganaa. waxaa ku soo biiray biliga hadda ugu dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii afraad waxaa ku soo biiray ilaa 2,500 oo qoys camal. oo ka soo barakacay koonfur galbeed iyo Gado dhexdeeda ka soo kacay oo abaaro ka soo kiciyay. amni ma aha waxa dadkan waxay ka soo kaceen abaaro beerahoodii iyo xoolihii. beerihiina roob la-aan bay kaga soo baxeen xoolihiina waa abaarta ka lagay. meeshaan waxaa yaallo inaad indhahaaga ku aragtaa fiicnayd. waxaa yaallo meeshaan baahi fara badan iyo dhibaato yaa dadka hayso. raashin ma haystaan, hoy ma haystaan. waxa un haystaan oo keliya waxaa waaye hay'adaha oo caafimaadka oo maaragtay la daaladhacayo hooyada masaakiinta umusha iyo ku dhex barnaan cilaha dumarku ku dhex umulayaan masalan. marka wax Ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiya dadkan haysto maadaama idaacadda telefishinka qaranka ka soo codkid dowladda federaalka ah maamul goboleedka aan hadda hoos joogno waxaan ku codsanaynaa hay'adaha samafalka dadkan inay la soo gaaraan gargaar degdega oo bini'aadanimo. waxaa kaloo codsanaynaa dadka jaalidaha oo gobolkan u dhashay oo Soomaaliyeed iyo dadka Ilaahay wax siiyay inay dadkan la soo gaaraan. maanta nin walba wuxuu baxsado ayaa bari ka horeyso dadkan masaakiinta oo meesha ku baaba'ayso oo Soomaaliyeed in lala soo gaaro. intaas waxaa dheer intaas ismaamulka Soomaalida Itoobiya dad ka soo qaxay oo Oromo iyo Soomaalida isugu jirto ayaa meesha jooga ayagana abaaro ka soo qaxay oo degmada Doolow ay soo gaareen. oo degmada Doolow ADP
abaarta soo gaaray ayaa jooga meesha ayagan oo qaar xataa aan afka aqoonin baa ku jiro. tiradooda ma inoo sheegi kartaa dadkaasi? yaa walaal tiradooda dadkaasi ma inoo sheegi kartaa? 400 oo qoys waay, 400 oo qoys waay oo oromo oo ay ku jirto oromo iyo Soomaali isugu jirto. degmada Doolow waxay ka mid tahay inta badan meelaha dadka barakacayaasha ay soo gaareen ka barakacay deegaanadooda ay abaarta si weyn ugu saameysay sida gobolada Bakool iyo Baay deegaano ka mid ah. sidoo kale waxay noo sheegtay in Soomaali Itoobiya dad ka yimid iyo dalka Itoobiya oo Soomaali iyo oromo isku jirtay soo gaareen Doolow maalmihii dambe waxaa laga soo warinayay in dad ay abaartu u geeriyoodeen. taas maxay nooga sheegi kartaa? way jirtaa niyow ciyaal baa jiro. waxaa kaloo jira bahasha la yidhaahdo shareecada ayaa fara xilla ku hayso. cudurna waa taqaanaa qofku hadday macluul qabato cudur oo dhan baa u nuglaanayo. difaac la-aan, hooyo difaac la-aana, ilmihii yararkaa shareecaa dhammaynayso. hadda meesha aan aniga hadda kaala soo hadlaayo ilaa meesha qayb ka mid ahaa ilaa 14 cunug baa ku dhimatay oo shareeca u dhimatay. qaar baahay u dhintay waa jiraan. dad aan dadka shidanayno daaqaya xataa ku jiro oo geedaha caleentooda oo cunaayo. meesha niyo waxaa ka jira wareer fara badan baa ka jira walaalo. ma jirtaa wax gurmad ah oo idin soo gaaray? maya ma jirto wax gurmad ah oo dadkan weli soo gaaray ma jirto. hay-adda IOM ayaa maanta iyo shalay iyo wax ka qorqortay laakiin wax la siiyey hadda ma jirto. waxay dhaheen waxaan 120 qof camal bay ka qoreen. waxaa hadda la siiyeyna ma jirto. dadka waxay cunaan iyo hooy la-aan dhibaatada ugu badan iyo biyo nadiif ah intaasay u baahan yihiin. adeega asaasiga ah oo dhan meesha kama jiro. musqulo male, ilaahay kumadiidaas ma jiro. hadda waxaan ka baqaynaa inuu ka dhaco nadaafad darro meesha inay ka imaadaan. aad iyo aad uga cabsanana. maamulka gobolka Gado way og yihiin, way imaadeen, way arkeen, hay-adahana way la wadaageen. laakiin xoogaa waxaan ku soo abaarmanay isbedelkii dowladda oo kala guurkii iyo waxaanay isku soo aadeen. maadaama marka dowladda hadda madaxweynihii la dhaariyey aad iyo aad waxaan uga filaynay inay macaawinada dowladda iyo hay-adaha dadkan loo canaanto oo dadkan si bini-aadanimada looga soo jawaabo. annagoo codsanayno oo weliba maaragtay aad iyo aad in loo magacaabay nin ergey ah oo arrimaha abaarahan sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaankaas ayadana waa soo dhaweynaynaa inaan walaal noo gaarsiisaan. xataa hadalkaygaan aad gaarsiisaan qaybtiisa twitterkiisa aad gelisaan. aad iyo aad baan inkaga codsanaynaa dadkan in la arko. dowladda federaalka aad naga gaarsiisin aad iyo aad baan inkaga codsanaynaa. qofka aan joogin degmada Doolow si gaar ah kaamamkan ku yaala duleedka degmada bal maxaad u qiyaasi lahayd? wallaahi loogama sheekayn karo wallaahi inuu imaado ma ogiya loogama sheekayn karo. waxaa lagu ku qiyaasi karaa 2009 waagi Magbowdhan uu imaan jiray gobolka Gado oo Bay iyo Bakool laga soo bixi jiray. xilligaasaa lagu qiyaasaya. roobab kama diin 4 sano meeshaan roob kama diin. dadka joogo waxaa dadka Darfur iyo waxaad xasuusanaysaa iyo koonfurta Suudaan dadkii ahaabaad xasuusanaysaa markaad aragto suurado. maxaa dowladda dhexe, maamulka Jubbaland iyo hay-adaha samafalka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee gobolka ka soo jeeda maxaad ugu baaqi lahayd? waxaan ugu baaqayaa walaalow dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud nin culamo ah weeye. hadda ka horne madaxweyne hoggaan ka soo qabtay waddankan Soomaaliya. waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow, ilaahay xilkaaga ha kugu garab galo. gobolka Gado abaar baa ka jirto. dowlad goboleedka Jubbaland iyo gobolka Gado madmadow waa u dhexeeyo. macaawinada ay lahaayeen ma imaado. madaxweyne gobolka Gado inaad safarkaaga koobaad inaad imaadaan kaa rajaynanay. haddaynan noqonin madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa gobolka Gado dad baa ku baaba'aayo. area Doolow dad baa ku baaba'aayo. xaduudka iyo dhibiyada inta udhexaysa boortada inta udhexaysa dadka Soomaaliyeed oo baahan baa tuuran. madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu halkan wafdi usoo diro la arko. hay-adda masiibooyinka iyo gargaarka soo diro. wasiirada caafimaadka uu soo diro. taasaan dowladda federaalka ka codsananaa. Jubbaland waxaan leeyahay Jubbaland Axmed Maxamed Islaan dadkan isaga gaajo u dhinta gobolka Gado Jubbaland bay ka tirsanta. qofkii gaajo ugu dhinta isagaa mas-uuladiisa ilaahi subxaana watacaala weydiinaya. waxay lahaayeen gobolkan Gado Jubbaland ha siiso, ha imaado. xildhibaaneen leedahay Jubbaland ku leedahay.
waxay ku leedahay wasiiro deegaankan u dhashay ilaahay ha uga baqeen dadkooda waxay systemka ee lahaan iyo miisaanada ee lahaayeen dadkan reer gado oo reer daawo ha siiyeen hana u imaadeen ayagana waan ka codsanaynaa codsimehe weliba waan faraynaa waa arrin muqadis ah ha imaadeen ayagaa wakiil dadkan ka ah waxaan kaloon baaq u jeedinayaa xildhibaanadii federaalka soomaaliyeed ee gobolkan u dhashay kitaab baa la mariyey kitaab waxaa loo mariyay dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan ayagana baaqaasaan gaarsiinaya inaad imaadaan doolow ee arkaan waxa ka jiro abaarta ka jirta iyo dhibaatada guud ahaan intaas aynu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka dhacdooyinka oo telefishinka qaranka soomaaliyeed aad kala socoteen intaan barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono waa deeqa uu koro idin leh nabadgelyo nimba meel ku turte